kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo lagu daweynayo cisbitaal military oo ku yaala duleedka magaalada Washington DC kadib markii laga helay coronavirus dowladda awood wadaagga ee Suudaan iyo jabhada dhowra oo maanta heshiis taariikhi ah ku saxiixday magaalada Juba gabdhaha ciyaara kubadda kolayga oo ku soo badanaya magaalada Muqdisho qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta aan ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalintii labaad lagu daweynaya cisbitaalka militariga ee Walter Reed ee ku yaala duleedka magaalada Washington DC arrintan ayaa imaanaysa kadib markii madaxweynaha laga helay cudurka coronavirus dhakhtarka madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee madaxweyne Trump ay tahay mid wanaagsan isla markaana u baahnayn in lagu xiro mashiinka neefta dadka siiya dhakhtarka madaxweynaha Dr. Sean Conley ayaa waxa uu sheegay in kadib markii ay khuburo la tashadeen ay madaxweyne Trump siiyeen daawada Remdesivir oo ah daawo loogu talagalay cudurka coronavirus Trump ayaa fiidnimadii Jimcaha diyaarad helicopter waxa lagaga soo qaaday aqalka cad wax yar kadib markii uu muuqaal kooban oo shacabka kula hadlay soo dhigay bartiisa Twitter kaasi oo ku sheegay in isaga iyo marwada koowaad ay xaaladoodu wanaagsan tahay isaga uu mahad celiyay inta ka walwalsan ee u soo ducaysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cisbitaalka Walter Reed ee uu leeyahay militariga Mareykanka ka soo shaqayn doona maadaama uu cisbitaalkaasi leeyahay xafiisyo u gaara madaxweynayaasha sida uu qabo dastuurka Mareykanka haddii xaaladiisa ay adkaato madaxweynaha waxaa si ku meel gaar ah awoodda ula wareegaya ku-xigeenkiisa laakiin saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa waxay sheegeen inaysan jirin xil wareejin uu madaxweyne Trump sameeyay oo uu xilka ku wareejiyay madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence xanuunka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee coronavirus ayaa ku soo aadaya xilli ay muddo bilah ka harsan tahay doorashada madaxtinimada Mareykanka dowladda awood wadaagga ee wadanka Suudaan iyo dhowr jabhadood ayaa maanta oo Sabtida galaya heshiis nabadeed oo lagu doonayo in lagu xalliyo 10 sano colaad oo ay ku barakaceen malaayiin dad ah isla markaasina ay boqolaal kun oo qof ku dhinteen saddex kooxood oo waaweyn ayaa bishii Agost kala saxiixday heshiis hordhac kadib bilooyin wada hadallo nabadeed oo martigeliyay dalka dariska ee koonfurta Suudaan jabhad kale oo awood badan oo lagu magacaabo The Sudan People's Liberation Movement North garabka uu hogaamiyo Cabdilcasiis Al-Hilo oo aan ka qayb galin wada xaajoojadii nabadeed ee ugu horeeyay ayaa ogolaaday bishii hore in la qabto wada hadallo cusub oo martigeliso koonfurta Suudaan Atud Gatluwak oo ah madaxa dhexdhexaadinta ee dowladda koonfurta Suudaan ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters ka hor xafladda maanta ka dhacday Juba in ujeedku yahay in heshiis lala galo dhammaanba kooxaha hubaysan hogaamiyaha ka socda Kenya, Ethiopia, Soomaaliya, Chad, Masar iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa sidoo kale ka qayb galay munaasabadda dagaal ayaa xalay mar kale ka qarxay gobolka Nagorno-Karabakh oo u dhaxeeya wadamada Azerbaijan iyo Armenia dhinaca kale Armenia ayaa waxa ay sheegtay in wadamada Ruushka, Mareykanka iyo Faransiiska ay kala shaqayn doonto xabad joojin dhexmarta labada wadan wasaaradda difaaca wadanka Azerbaijan ayaa soo bandhigtay muuqaalo drone oo ay ku sheegtay weeraro lagu bartilmaameedsaday qalab military oo Armenia ay leedahay wasaaradda difaaca Armenia ayaa wax iyaduna baahisay muuqaalo muujinaya qaraxyo dagaalka cusub ayaa sababay dhimashada 55 qof oo ciidan ah taasi oo tirada guud ka dhigaysa 147 dowladda Azerbaijan ayaan ka jawaabin baaqa xabad joojinta ay u direen saddexda dal sida wadajirka u gudoomiya ururka amniga iskaashiga Yurub ee loo soo gaabiyo OSCE ee dhexdhexaadinaya colaadda u dhaxaysa labada dal madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa talaadadii meesha ka saaray in Armenia lagala hadlo arrimaha gobolka Nagorno-Karabakh iyadoo Turkiga oo xulufo la Azerbaijan ay khamiistii ku dhawaaqday in saddexdan quwadood ee waaweyn aysan door ku lahayn nabadeynta madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu qadka telefoonka si isxigxigta ugula hadlay ra'iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan iyo madaxweynaha Azerbaijan Aliyev waxa uu soo jeediyay qaab cusub oo dib loogu bilaabayo wada hadalka kooxda dhexdhexaadintu ay wado ugu dambeyntiina sanadihii la soo dhaafay waxa deegaanada Soomaalida ku soo badanayay falalka kufsiga iyo dilka ee lagula kaco haweenka Soomaaliyeed xilliyadii hore waxaa jiri jiray dhaqan ku xeerar uu jideeyay
oo markaasi qofkii ku kaca fal kufsi iyo wixii la mida lagu ciqaabi jiray. haddaba wariyaha VOA magaalada Nairobi ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya. kiisaska la xiriira kufsi wadareedka iyo dilalka loo geysanayo dumarka Soomaalida ayaa aad u kordhayay sanadihii la soo dhaafay gaar ahaan geeska Afrika. laakiin aqoon-yahanada dhanka dhaqanka Soomaalida ayaa sheegaya inay jiri jireen ciqaab lagu qaadi jiray ama lagu fulin jiray raggii dhibaatada dumarka u geysan jiray. kufsigu horta waa dhici jiray laakiin tiradiisu way yarayd oo wax sanadkii ama labadii sano mar la maqlo bay ahaan jirtay. marka uu qofku wax kufsadana laba option bay ahaan jireen. haddii labada beelood cadaawadi ka dhaxayso in dagaal uu qarxiyo oo labada beelood isku laayaan arrinka gabadha sababteeda aawadeed bay ahaan jirtay. waxa kale oo aan jiri jirin dilka. gabadha waa la kufsan jiray oo way dhici jirtay iyadoo waliba aad u yar laakiin dilku ma dhici jirin. waxa kale oo loola macaamili jiray haddii labada beelood ay cadaawadi dhex online oo laba beelood oo caadi yihiin in ay ka xaalaan kagala xaalaan oo dabadeed ciqaab la mariyo qofka oo aanu dib ugu noqon hadhowdina uu noqdo qof takooran oo bulshada ka duwan oo aan la nooc ahayn oo dadku dhan farta ugu wada fiiqo lana soo dhaweyn. hadda oo aynu joogno kufsigan hadda socda maaha kufsi baan oran karnaa waa mashruuc la fulinayo oo meelo kale laga keenay oo dana gaar ah lagu fushanayo waayo dil iyo kufsi iyo oo joogto ah maalin walba taagan oo haddana kufsi wadareed wax la yiraahdo adduunka kama dhicinay horena uma dhici jirin bulsho dhan oo intay isugu tagto gabar ilaa 5-6 nin oo wada fuulayo haddana dilaya waxaan oran karnaa kan hadda socdaase maaha mid kufsi la oran karo waa wax mashruuc kaleeto oo la wato. inta badan waxaa deegaanada Soomaalida mararka ay dhibaatooyin noocan oo kala ah ay ka dhacaan ka jira in madax dhaqameedyada labada dhinac ay ka wada xaajoodaan sidii xal looga gaari lahaa arrintaasi. haddaba shariicada islaamku maxay ka qabtaa arrintaasi? salada in laga xaalo haddii dil yimaado asalka qisaas baa xaq loo leeyahay waxayna ka go'daa dadkii lahaa. dadka qofkan wax geystay uu ka dhashay codsi way jeedin karaan dalab way geysan karaan mag baan bixinaynaa hana lagu cafiyo way dhihi karaan. qoladii kalena inay cafiyaan iyo inay diidaan iyagaa xaq u leh. waa haddii meesha xukun cadaalad oo xaqi uu ka jiro. hadduusan ka jirin oo xaqi xaddii iyo qisaastii wax fulin karaba uusan jirin lagana baqaya fitan iyo isdagaal iyo dhiig badan inuu ka dhashahay kaalinta akhyaarta iyo odayaasha iyo waxgaradka waa u furan tahay wixii fasaadka lagu yareyn karo ama dhibka lagu yareyn karo ama dhaqaale la bixiyo ama waan inay galaan way furan tahay. khadar maxamuud xareed qubanaha VOA Nairobi. haatan haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha gabdhaha ciyaara kubadda kolayga ayaa waxay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho inkastoo ay hanjabaado kala kulmaan kooxaha xagjiriinta ah iyo waliba bulshada qaarkood oo diidan gabdhuhu in ay kubadda ciyaaraan. gabdhaha ayaa ku dhiiranaya culayska uga imaanaya qoysaskooda iyo xitaa hanjabaada weerar ay geysan karaan dablay hubaysan oo aaminsan in haweenku aysan kubadda ciyaarin. Fardowsa Cumar Cali ayaa ka mid ah ciyaartoyda. xamarna way iska riski badan tahay markaas oo bixina amal ina awoodi weyno xitaa ina dhahno kubada u socona ina boorsada buugaagta lagu qaato ina kaba iimayliyad ku soo ridano oo dhahdo jaamacada u socona ama iskuula u socona marka ayadoo caqabadahaasna ay jirto haddana waa ku qanacsanahay kubada kolayga ina sii ciyaarno xitaa aysan jirin dawlad noogu dhiirigeliso. haweenku waxa ay ku ciyaarayaan oo kaliya xarumo ay ku hareeraysan yihiin darbiyo shuba oo aan cidna ka arki karin. mid ka mid ah tababarayaasha kooxda Soddonka waa Nasra Maxamed oo koob iyo konton jira. waxa ay tiri haweenku ma helaan wax maalgelina. malahan ku dhaay waa qofna caawin kubadna ku caawin ma haysana qof qalabna ku caawin ma haysana qof oo maxaan maaliyad nagu caawin koob ma laha. garoomada xataa garoomada inaan meelaha qaar inaan tagno baryootoma hadda degmada Xamar Jabaan joognaa gudoomiyaheeda u nimid waxaan ku dhahanay gudoomiye waxa dhameelaan ku tababarano sidoo noo sii meesha ilaa haddan saas u joognaa waana u mahadinaynaa gudoomiyaha. markay ciyaarayaan tababarayaashu waxay gabdhahan gudoonsiyaan koobab yaryar oo qiimo jaban oo abaalmarin ahaan ay u siiyaan. tababarayaashan waxay jecel yihiin hawsha ay qabtaan waxa ayna ku haminayaan in ay bilaabaan kooxo ka dhisan Soomaaliya oo dhan.
orodyahanka u dhashay wadanka Itoobiya ee Kenenisa Bekele oo ninka isagu kaalinta labaad kaga jira orodka dheer ee dunida ayaa ka haray tartanka orodka dheer ee xadda Brita ka dhacay magaalada London. kaaristiisa kulanka ayaa imaanaysa kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray anqowga. arrintan ayaa waxay meesha ka saaraysaa in uu la tartamo ninka isagu haysta rikoorka dunida ee orodka dheer ee u dhashay wadanka Kenya lagu magacaabo Eliud Kipchoge. Bekele ayaa waxa uu jimcihii shalay sheegay in dhaawiciisa uu keenay kadib markii uu sameeyay 2 tababar oo isu dhowdhow oo uu ku orday xawaare zaid. dhaawaca Bekele ayaa albaabka u furaya in Kipchoge oo markii horeba loo saadaalinay inuu tartankan ku guuleysanayo uu markiisii shanaad hantiyo tartanka London Marathon. Bekele ayaa sanad ka hor waxa uu tartankii Berlin ku orday waqti 2 saac iyo 41 ilbiriqsi isagoo 2 ilbiriqsi oo kaliya uga dhinnayd rikoorka Kipchoge oo isagu haysta rikoorka orodka dheer. Kipchoge ayaa waxa uu ku orday waqti 1 saac 59 daqiiqo iyo 40 ilbiriqsi tartan ka dhacay magaalada Vienna October-tii la soo dhaafay. inkastoo cudurka COVID-19 uu carqaladeeyay tartanka orodada, haddana xadda Brita tartanka dhacaya ayaa noqonaya mid ay ragga iyo dumarkuba ku baratami doonaan. dhinaca ciyaaraha kubadda cagtana horyaalka wadanka Ingiriiska goordhaweyd kulan soo gabagaboobay. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa 4 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace oo ay ka wada dhisan yihiin magaalada London. ciyaaryahan Jorginho ayaa 2 rigoore oo kooxda loo dhigay u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Chelsea, halka 2 gool oo kale ay kala dhaliyeen difaacyada Chilwell iyo Zuma. waagagda wadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qubanaha maanta. intaynu mar kale dib u kulmi doono waa Maxamuud Mascad iyo dhammaan baabahada qubanaha oo idile sida iyo nabadgelyo.